Asalaamu calaykum akhayrta sharafta leh galab wanaagsan maalin wanaagsan duhur wanaagsan adduunyada meel walba ay ka joogtaan maantana macluumaadkeena waxaan kugu soo gudbi doonaa ama akhbaarteennii boqolka kambani ee adduunyada ugu waaweyn ee isticmaala bitcoin ama aqbala bitcoin iyadoo qoraal ahna halkan ayaan kugu soo gudbinay haddana iyadoo video ah marka kambaniyaashii waa kuwana hadday noqoto shirkadaha websaydyada host gareeya hadday noqoto shirkadaha gawaarida iibiya iyo haddii ay noqotoba shirkadaha safarka haddii ay noqoto diyaaradaha aqbala oo dhan diyaarada norwegian cheapair tigid waa ku iibsan kartaa waxaa meelaha badana wax ku cuni kartaa hadday noqoto hambeger bangiyada aqbala waa arkaysaan iyagana shirkadaha teknolojiyadda microsoft iyo babel way aqbalaan shirkadaha hay-adaha aanan ama NGO-yada aanan faa'iidada laga helaynin oo iyagana aqbala bitcoin waa kuwaasa tiyaatarada ama meelaha laga fiirsho shaleemooyinka aqbala waa kuwaasa websaydyada wax laga iibsada iyagana aqbala waa kuwaasa marka macluumaadkii oo dhan waa kuwaasa shirkadaha sawiradana waa kuwana babel hadday noqoto microsoft google shirkadan jaban ayaa laga leeyahay recruiting marka shirkadihii oo dhan waa kuwa citibank marka shirkad walba macluumaadkeedane markaad jak ku siisa ayaad fahmaysaa marka haddii aad rabto iyadoo qoraal ah haddii aad rabto iyadoo video ahna waa kuwaas marka intaas ayaa u soo korortay macluumaadka inta ay dadku u maleeyaan in teknolojiyada laga tegay teknolojiyada hore ayay usii socotaa marka casriga cusub ha ka harina adduunyada la socda mar walba aa istiraahdo bitcoin ama lacagahan digitalka ama lacagahan cryptocurrency-ga waa laga tegay ama waa la iska iloobay adduunyada maaragtay kalantana way soo gelaysaa oo horey usii soo gelaysaa oo servisyadooda ayay kusoo darayaan si aad wax ugu iibsato ama aad ugu isticmaasho insha allah waxaan rajeyn doonaa inaad ka faa'iiday waana mahadsan tahay inaad nagu xiran tahay waxaan isku dayi doonaa inaan wax walba oo macluumaada idii soo gudbino oo tabarteena ah marka aad iyo aad ayay u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu